waxaa soo dhammaaday toddobaadkii afaraad ee horyaalka kooxaha heerka labaad ee xiriirka kubadda cagta Somaliland ka wada garoonka Hargeysa Stadium degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. Kooxda wasaaradda warfaafintu waxa ay 3-1 uga soo badisay kooxda wasaaradda cadaaladda. Kooxaha ciidanka ilaalada xeebaha iyo wasaaradda isgaarsiintuna waxa ay wada galeen barbaro 3-3 ah. Kooxaha wasaaradaha qorsheynta iyo waxbarashaduna waxa ay wada galeen barbaro 1-1 ah. Kooxda wasaaradda hawlaha guud waxa ay 5-3 uga soo badisay kooxda wasaaradda gaadiidka. Kooxda wasaaradda beeruhuna waxa ay 1-0 uga soo badisay kooxda wasaaradda tamarta. Waxaana sidaas toddobaadkii afaraad horyaalka heerka labaad hoggaanka u haysa kooxda wasaaradda tamarta iyo macdanta kuna hogaaminaysa 9 dhibcood iyo 9 gool. Dhanka gool dhalinta ciyaartoyga waxa hogaaminaya 3 ciyaartoy oo kala ah Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf oo ka tirsan kooxda wasaaradda isgaarsiinta iyo Naasir Rashiid Aadan oo ah kooxda tamarta iyo macdanta waxaana haystaan 5 gool. Haddii toddobaadkii koowaad lagu soo dhaliyay 27 gool oo toddobaadkii labaadna lagu soo dhaliyay 17 gool isla toddobaadkii saddexaadna lagu soo dhaliyay 23 gool ayaa toddobaadka afaraad ee galabta soo dhammaaday waxa lagu soo dhaliyay 21 gool iyadoo wadarta guud ee afartii toddobaad ee horyaalka heerka labaad waxa lagu soo dhaliyay 8 gool. Haddaba maxay kula tahay in toddobaadka shanaad lagu dhalin karo hadduu alla yiraahdo Xasan Xuuto wararka malcab magaalada Hargeysa.